Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Pro ICT IT. Waa tii aan casharadii aan wadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa, inkastoo arday ama dhegeystayaasha qaar ka mid ah ay su-aalo khaas ah na soo weydiiyeen aan ugu jawaabnay. Laakiin waxaan ka dhigi doonaa hadduu ilaahay su-aalo su-aalahaas dhan ayaan isku keeni doonaa. Mawduuc gooni ah in qof kasta uu ka faa'iideysto ayaan rajeynayaa. Markaas oo maadaama mawduuc dheer yahay gooni ayaan usoo duubi doonaa, laakiin casharkeena ayaa halkaas kasii wadi doonaa. Tii aan sameynay saddex departmenti oo aan domainka brushstroke local aan u sameynay saddex departmenti oo kala ahaa macallimiinta iyo maamulka iyo maxaan ku dhahaa xogeyntii. Marka qof kasta waxaan u sameyn doonaa ama macallin kasta meeshuu joogo inuu ka daawacdo printer inaan u sameyno oo gooni oo macallimiinta qolkooda iyo maxaan ku dhahaa maamulka oo qolkooda ama meel kasta ay joogaan inay ka daawaci karaan. Xogeynta oo qaas u ah printer qaas ah inaan u sameyno. Saas ayaan casharkeena maanta ku saabsan yahay. La socdo insha Allah. Waa saa ujeedaan serverka ayaan joognaa, marka waxaan tagi doonaa macallimiintii iyo maamulkii iyo printer ayaan usoo sameyn doonaa. Waa tii macallimiintii iyo maamulkii aan usoo sameynay, laakiin maamulkii ayaan waxaan u sameyn doonaa printer qaas u ah iyo macallimiinta printer oo qaas u ah iyo xogeyntii. Waa tii hadda aan kasoo sheekeynay. Marka sidee u sameyn karnaa marka ujeedada printerka waxaad kasoo sameynaysaa kow waa inaad tagtaa manager ama manage ayaa tagaysaa, kadibna add role and features ayaa tagi doontaa, kadibna waxaad tagi doontaa next ayaa leedahay next kadib meeshan ayaa ka raadinaysaa printer and document services. Halkaas waa ujeedaan. Kadibna next ayaan leeyahay waa inuu halkaan hadhow ii imaadaa. Halkaan ayuu ii imaanayaa ay ku qoran tahay local serverka iyo all server iyo DNS iyo meeshay ku qoran tahay files storage-ka. Halkaan inuu printer imaado marka next ayaan leeyahay. Kadibna next waxaan filayaa restart isku sameyn doonaa, laakiin next restart ma ku sameynayo maadaama waqtiga uu nagu socdo. Waxaan sameyn doonaa si toos ayaan restart gadaal ayaan ka dhigi doonaa hadduu ilaahay. Waa ujeedaan hadda wuu noo imaaday printer service ayaan haysanaa in aan printer aan siin karno serverka uu dhiibi karo serverka uu qaybin karo maxaan ku dhahaa printeryaal ama printers. Kadibna close ayaan iska leenahay. Hadda marka halkaas ayuu noo imaaday. Halkaana hadhow waan kasoo dejinaynaa. Marka intaanan printerka aan tegin oo wixii aan soo sameyn policy aan u sameynaynaa. Policy waxaan u sameyn doonaa waxaan tegaynaa active director waxaan tegi doonaa policy aan tegi doonaa group policy management. Halkaas aan kasoo galay, kadibna group policy management ayaan tegi doonaa. Policy aan u sameyn doonaa. Halkaas ayaan furi doonaa documents ayaan furi doonaa. brush.local ayaan kasii furaynaa, kadibna brush ayaan sii furan doonaa. Macallimiinta maamulka ayaan u sameyn doonaa printer. Marka right click ayaan ku leenahay maamulka, kadibna create new GBO domain. Marka aad ku dhufanaysaa click ayaa ku leedahay, kadibna waxaa ku imaan doona policy meesha ku qorleed. Policy waxaan ka dhigaynaa printer maamulka, kadibna okay ayaan dooran doonaa. Halkaas ayuu noo imaaday saad ujeedaan policy-ga aan sameynay. Sidoo kale macallimiinta ayaan sameyn doonaa. Right click create GBO, kadibna printer macallimiinta, kadibna enter ayaad leedahay ama okay.
xogeynta sidoo kale right click printer okay kadibna okay aan leenahay asigana wuu noo yimaaday marka saddexdooda policy waa samaysanay kadibna waxaan tegaynaa printerka ayaan tegi doonaa halkaas hoos ayaad tegi doontaa printer mada ku qoran tahay print management oo jeedaan ayaad klik ku leedahay kadibna halkan ayaa klik ku leedahay add printer ayaa leedahay kadibna waxaad dhihi doontaa next kadibna IP address ayaa u samayn doontaa IP addresska aan u sameynay marka 192.168.150 ayaan siin doonaa inkastoo dhibic ayaan ka tagay mid kasta waa dhibic inaan samayso 168.100.50 kan kale waxaan siin doonaa 51 marka wada socotaan filaya already waa la qaatay horaan u sameeyey marka 101 aan siino marka qaatay mujida marka kan kale waxaan sii doontaa kan hadda waa inay la socotaa kan hadda maamulkaan sameynaynaa 101 waxaan siinay 51 kan kale 52 kan kale 53 marka waa inay isku xigaan saad u xasuusto wax yar waqti ayuu qaadanaya laakiin waan sugaynaa okay waa noo keenay haddana next ayaan leenahay sidoo kale waqti ayuu qaadanaya laakiin waa inaan sugnaa qasab okay hadda wuu raadinaya loo socdo keenay marka next ayaan dhihi doonaa kadibna asigana brother canon asiga aan doorno marka canon maaragtay calaamad canon ayaan ka dhigi doonaa kadibna next kadibna intaas ayaan tiri doonaa qori doonaa macallimiinta okay next waa inoo yimaadeen labadaba maamulka iyo macallimiinta marka waxaan ku hormaraynaa maamulka right click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay deploy meeshay ku qoran tahay ayaad ku with group policy ay ku dhufan doontaa halkaas kadibna halkaas barosh ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa kadibna waxaad tegi doontaa barosha.local oo maaragtay kadibna hadda waxaan u sameynayna somaha maamulka u sameynayna halkaas ayaa ka muuqataa maamulka ayaan ka dooranaysaa marka maamulka kadibna printerka maamulka soo ma jeed printerka maamulka kii hadaayo policy aan soo sameynay ayaa halkan noo yaala marka okay ay ku leedahay kadibna waxaa leedahay computer kasta macnaha the user maaragtay per user ayaa leedahay halkaas ayaad ku dhufan doontaa per user macnaha user kasta oo macallimiinta ka mid ah ayaa ku daabacan kara macallin kastoo cusub macallinkii hore kulli macallimiinta oo dhan add aa leenahay marka halkan ayuu noogu soo darsamayaa waa maamulka oo brother oo maaragtay
printerka noociisu yahay brother, printerka maamulka, kadibna apply, printer deployment waa lagu sameeyey, kadibna okay, kadibna macallimiinta ayaa tegi doona right click deploy with right click ayaa ku leedahay, kadibna deploy with group policy, kadibna halkaas ayaad browse ayaad tegi doontaa, kadibna brochure.local, kadibna macallimiinta waa ka macallimiinta, kadibna printerka macallimiinta way la socotaan filan, kadibna okay, kadibna per user, kadibna add halkaan ayuu noo imaanaya, kadibna apply, kadibna lagu sameeyey isku xiran yahay hadda markaa. Tusaale ahaan hadda macallimiinta markaan tagno inuu noo sameeyey in kale si ku ogaanayna, marka waxaan tegi doonaa tusaale ahaan word ayaan meeshan ku qoraynaa, wordpad ama word nagu jiray wordpadka, wordpad, kadibna waxaa iskaga qoraysaa printer ayaan leenahay, printerada inuu noo shaqeynayo control B ama waa kaan macallimiinta iyo maamulka soo majeed meeshaas printerka ku qorayiin, marka waa diyaar. Saas markaa dhahdid printer haddaa dhahdid waa hadda printerka si toos u soo baxaya, waa noo shaqeynaya. Xogeyntan waa samayn kartaan aan maleynayaa wax weyn maahan, same steps ayaa la marayaa.